aduu soddon inan ayaan soo saaray soddonkiioo aada u dhisan baa waxaa yimid kacaankii militariga ayaa waddanka qabsaday 69 markaa 69kaas ayaa waxaa wasiirka tacliinta waxaa noo noqday inaan isku arday ahayno oo la oran jiray cabdirasaaq maxamuud abukor ninkii cabdirasaaq ayaan xafiiskiisi uu galay inta la geeyey bootika meel la yihahdo lagu tababaro macallimiinta waati la geeyey ma gebigayagaba lasoo xareeyay isagaasaa fikrada lahaa in dadkan uma talin karayna maskaxda dadka haysa waa tacliinta tacliinta horta isku tawaafin markaasi ilaa 800 macallin baa laisugu kaga keenay maashi xarana la yidhaha bootikana loohan jiray berigi hore halkaasoo lagu tababarayaan cabdirasaaq lagu tiyay gurigiisa gaar laga hayo sida iyadoo gaar baa laga sugaan karto adeegkii o dhan waa sheegsay waa la balaageliy wareer waxaan yidhi meesha haddii intaasoo sanaynu wada jaarahayno isku kalaasayno maanta haddiiba maanta aad wasiir noo noqotay tacliintii adigu kala madax u tahay waxaan kuguma tayn lahaa si soomaaliya o dhan ad wax ugu tarto oo ugu hiiliso intaa culturkan carabiga lagu joogtay waa maxay u yidhi waxaan soo celisaa imtixaankii loo jiray imtixaan tarqiya labadii sano ingiriiska siin jiray macallimiinta ee kolkaa lagu dalaci jiray soo celi markaad soo celiso wasaaradahoo dhan deg deg waxaa tiraa hawlfars oo 3 luqo ha lagu tarjimo carabi ingiriisi iyo talyaani nin walba afku yaqaano kolkaa ku galo siibuu igu yeelay inagoo weli xalanadii ku jiraan lasoo saaray fikradii imtixaankii baan gallay waxaa ilaahay ogaa 30kii aan soo saaray iyo 30 kaloo koonfurta ka soo baxayo iyagoo ilaa 60ka ugu horreeyaan guli waxaan ku gallay 2,000 oo macallin ah 2,000 oo macallin baa galay iyo weliba 600 baan malay lixdanka ugu horreeyaaba waxay ahayd tiba carabi baa ahayd sababtaasaa yani isbedel ba turba aan ka sameynay maarata wasaaradda waxbarashada runtii aada maarata isbedel halkii macallin dayaalo loo oran jiray nimanka waxay wada noqdeen wada kormeera laga wada dhigay horta 30 kormeero maydan waxa weeye kuwa iskuullada soo jegareeya maamulayaal iyo kormeerayaal baa lagiyay markaa sidaasaa tacriif ay waxa ugu tagtay jihaadka aan galay wuxuu yidhi ina macallimiinta nabiga joogaankan marka qolandanimadii war jihaadkii weli sidii ma wadi 30kiibu kamid ahay ina macallimiinta qulihiisa halkan jooga maxamed macallimiin xillimaad soo gashay markaa lana waxaan soo galay 1990 baan soo galay bishii September markaa waxa weeye qarnigaa 10 bilood maamulay sababtoo ma sababtoo qarnigii labaatanaad 10 sano qarniga nawaaniga ma ka bilowday inaad waxbarashadii iyo arday kale inaad soo saartid halkan waxa weeye waxaan bilaabay tafsiirka ayaa iskuuli maarata ka cawiyo dadku maarata mafaaris waxaa la yidhaahday ay yidhaahdoo og haaray meel kaleona ku urursanna ma jirtay runtii aad baa maarata wax weyn waxaa moodayay maarata dad wax loo qaabin soo caawin karo laakiin meel qaadla ma oranay inaad booqashooyin kale aad Malawi aad ku tagtay baan Malawi waxay wasaaradii waxbarashada berigaan ku jiray horta ayaan ku imaday 19 sano macallinka ahaa ama maamula ama aduu wasaaraduuna ku jiray kolkaa 1980 ayaa kolkaa ka tegay wasaaradda waxbarashada iyadoo maarata maciishadiina maarata iska celin noqotay carruurtiina igu baatay ayaa wasiirkii waxbarashada weydiisay maarata iyo ogolaaday shaqa ka tag iyo markaa berigaasa lee ogolaaday markaa waxaan u doofay kolkaa sacuudigaan tegey sacuudiga waxaa la kulmay kolkaa raabita caalam islaami shahaadooyinkeyga iyo tusayo iyo tacliinteeda iyo khibrada iyo shahaado khibrada oo kasoo qatay wasaaradda waxbarashada isla markiiba waxay ii direen Malawi Afrikadaa dhexe
markaas halkaas waxaa baa nabiyahay markii waxaan joogayba ilaa 8 sano 8 sano markii wadankii laga soo qaxay ee dadkii uu ku baabaayay halkii seefeeri loo jiro ayaa waxaan goostayna si loo tago waxaa sababta uga tegayay raabita caalam islaamka kama tageen waxay iga diideen 3 xiran oo aan geystay Malawi oo jeebkay ku geeyay baan bilis iskuulla baray fidaa jira meesha oo ardaygiiba $1,000 uga qaadanayo sanadkii 3,000 ka bixiyay way diideen wax yeelan ogaa waa igu diideen wax yeelan mushkilada Soomaalida ku dhacday anagu laba khusayso waxaan khusay waxa weeye shaqadaan ku dirana ma shaqada wado markay igu diideen baan ugu goostay inaan iskaga imaado oon laaji noqdo waxaan fadilay inaan waxaan fadilay laaji sidaasaan u leeyahay runtii maaragtay ilaa imikada rag baa yidhaha xuquuq wax la yidhaha imaysi xuquuqda haddii weydiisaan ragga qaar yidhaha xuquuqna ma weydiisaan waxna ma weydiisaan ilaa halkana orka amiinulcaamkii igula soo hadlay londontan qadina waan hayaa leeyahay bris waan ku baryaynaa ku noqo Malawi waxaan ku noqonayaa haddaa ujeedaan in diin la fidiyo halkana tansir lagu sameynaya ummadayda taas u orsa halkan badda igu soo magacaaba halkana tobayaal daacibay u baahantay waa taa marka haddaad waxay haddii kale anugu uma noqonayaan saasan ayaa lagu diiday runtii aakhirkii marka intaasoo warqado soo celinaysa bej waxaan yahay marka fallo warqadii u dambeysay iyo warkaas ka kaaftoomay wakiil iyo xaqaygii soo diraayo way soo jawaab waayo hadii aan u noqono dhinaca 1990kii ilaa 1980 xilliyadii dagaaladan jabhadii asana waxa ula markaa halkan waxa weeye ninka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa 1990kii ayuu sameeyey waxaa guurtiisa guurtidaasa kamid noqday reer walba dadsaa 8 inan buu dhalay 8 baa ayaa reer jibsinba 2 inan baa laga soo qaday marka 8daasan kamid noqday iyadoo garxajis ahaan aniga iyo nin haweenaysa nalageeyey meesha halkaas guurtidaasaan ku jiray ilaa muddo dheer oo howlo badan qabano runtii maarka aad wax uga qoray qoraallo aan u diri jiray naseexa iyo talaba dadkii markii dagaalka sokeeye dhex maray waxa weeye loo fariyey ilaa waxaan isku dayay haddana idaacaddii hargeysa xitaa inaan lacagteedu ururino annagaa kolka isku hawlina waa waxyaabo badan oonu berigaa maaragtay waxna waa ka hirgala waxna dee idaacad oo kale misla waa naga xakatay runtii maaragtay dooni xilligan la doortay wax kulana ma la yeelatay oo la xidhiidhay maylo yeelo intaasuu dhowr jeer yimid halkan waa isu dayanatay waxay caawin waayeen transportka iyo hawada lafteeda waxa weeyaan marka ka baxo guriga badana waxaan u baahanayaa gaarigii yaraana wadana xamsada sheekh Umar haddeen kusoo noqono imse buug ayaad soo saartay xilligan buugtii waxay iga cadeen waxa weeyaan sidaan u daabici lahaa intaa keliya ay hortaagay laakiin naxwaa waan ka qoray kan waa dhaxalka waxaana dhaxalka ugu horreysay u daabacay isaga aan isu dhibay ilaa dhowr kun bay kaga baxay daabaca buuggaas waxa weeyaan buuggaas waxaa ugu daabacay isugu dhibay waxa weeyaan waddankaan tegey oo gebigiisa muslima sheeganaya waddanna waa muslima waa sheeganaya ummaddaa dhan qof cilmulfaraid yaqaanana ma jirin marka anaa u bilaabay cilmulfaraidka meesha ka bilaabay iskuuladooda waa wadankee waa Malawi Malawidan lay diray cilmulfaraid ummadii hadii la waayo cilmigaa cid taqaanana ummadoo dhan way dabaabaysa waa runtii wey leanno nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska halkan ku qoran muqadamadayda wuxuu ku yidhi cilmiga looga horwaayi doono aakhir salaamka waxa weye cilmigan cilmulfaraidka weya
cilmiga dhaxalka waxaa kaloo nagu maqan inaad la kulantay sheekh axmed diidaani intii waan kulmay axmed diidaan marka oo dee meesha iyadu wadanaa buwaagtiisa noo imanayo isaguna yimido waxaa waan kulmi jiray dacwad buu fiiri jiray in aada ilaahay u naxariisto qiimo badan buu ahaa laakiin anugu uga tegin xaggaasi danaawilkiisa noogu yimid haddii aan ku weydiino imika xaas oday waxaad tahay xaas imse caruuraad leedahay caruurta de wax weeye xaaska keliya waa koob iyo toban bay dhashay 9 wiil iyo 2 gabdhood marka aynan umaa dhintay waa wada noolyihin insha allah wayna tarmeen waxa weeyaan xaggana way joogaan hargeysa halkana qaar baa jooga dhaanmari qaar baa jooga waa dee waa la fidray waxay noqday dadkii gabagabadii barnaamijkeenan gaarka aad maanta fursada noo siisay maxaad ku gubaabinaysaa ummadda ku daawanaysaa ama ku dhegeysanaysaa maanta ummadda waxaan ku gubaabinayaa in khilaafka iska ilaaliyaan leanna khilaafka ilaahayna wuu noo diiday wuxuu yihi hadday iskhilaaftaan quwadiina iyo baawarkiina taliya ayaa ilaahay qur-aanka inoogu sheegay mid kale waxaa khilaafka la yidhaha wax alyaala wuxuu keenaban jirinba waxaa jira tawfiiqda masalan haddii sheeko yara kaaga sheekayaalka ama dadka la asusiyo sheekadaasoo beri ka dhacday dadka beeraleyda galbeedka waxaa jiray shimbiraha ayaa aada caruur ugu waaran cuna markaa waraf bay ku tuuraan ciyaalku ama dad baa ama ha weynaadeen dee dadka beerta waxaa jiray nin usoo ashfutaday nin sheekh oo caqiidada islaamkana aad baa loo jecelayo ugu kalsoonaan jiray sida imka lagu caqiidadu ta may ahayn dadku ka caqiido wanaagsanay culimadu waxay ahayn hogaamiyayaasha ummadda markaasuu intuu yimi sheekh waxaad iga ducaysaa shimbiraha shimbirtii baan uga taagi lahay xaruunkii warafkii ayuu baan la taagan waxba markaa wuxuu yihi adiga iyo shimbiraha allah idin kala xaqaada iska tag buu yimi markaa markuu beerti yimid ayuu wuxuu yimi shimbirtii oo mas liqay maskuna wuxuu ka soo baxay tiirarkii uu ku taagnaa warafkii halku ka tuuriyanayay waabkii uu ku taagnaa qori qori daloole ayuu ka soo baxo marka runtii shimbirtii ayuu laqabo maski noqday marka maskii ayuu usoo sheegay sheekh waa ninti daba waayey sheekhow shimbirtii oo waxaa kaa noqdo sheegay shimbirtii oo masliqay baa lagu tegey markaasuu yihi shimbirta iyo maskana allah u kala xaqaaday oo laska tay wuu kusoo noqday haddana meelkii kusoo noqday ayuu yimid qorigii uu ku taagnaa waabkiisa oo mid intuu kala jabay maskii ka dhinac ka galay markaa maskii rafanaya ayuu u yimid oo wuxuu ku yidhi sheekhow intuu yimid haddana maskaad ogey ayaa qori intay dabayli timid ayuu qori jabayo qori baa dhinac ka galo maskii rafanaya shalowti markaasuu yii maska iyo qorigana allahu kala xaqaaday oradi marka soo noqday ayuu haddana wuxuu yidhi qorigiio aboor orayuu yii markaasuu sheekh qoriga baalkii dhinaca ka galay aboor ma gamrisiiy markaasuu aboorkii qorigana allahu kala xaqaaday oradka tagay markaasuu kusoo noqday haddana markaasuu yihi sheekhow waxaan u imid aboorkii oo jinacduulaan cunaya jinacduulaan kan isdaba gale ee midka keliya hor socdo markaasuu yihi kaasoo maaragtay kaa habaarkuma kale oradka dhaqan yiri tawfiiq buu leeyahayo kaa ma habaari karee oraska tag buu yihi markaa meesha waxaa uga jeedaa tawfiiqda waxaa la yidhahaa waa qaali weeyaan baagi xitaa quraanjada baalkaas yareedee dabageliya ayaa weligii hadduu xitaa la qasana maaragtay waga joogsata waad mahadsantahay adigana aada iyo aad idinku mahadinayo qol iga qabatay xoogaaka